madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi maqaal dheer oo uu ku qoray jariidada dalka Mareykanka ka soo baxday Newsweek loo yaqaano ayaa waxa uu u dhignaa sidan. Wuxuu yidhi madaxweynuhu hadalkiisa ku bilaabay xeerka kundhiga u ah siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka ee madaxweyne Joe Biden waa wada shaqaynta kala dhaxaysa wadamada furfuran ee dimuqraadiyadda ah kuwaas oo dana iyo ujeedo la wadaaga Mareykanka. Ma jiro waqti looga baahi badan yahay maanta istiraatiijiyadan cusub waqti xasaradaha adduunka ka aloosan kordheen oo cirkays ku shareereen hase ahaatee sidee loo dhaqangelin karaa istiraatiijiyadan ayuu madaxweynuhu calaamad su'aal saaray. Maanta adduunkan dhibaatooyinka ka aloosani ma jirto qadiyad ka xiiso badan in wada shaqayn toos ah lala yeesho Soomaaliland. Waa qaran ku yaala goob istiraatiiji ah oo gacanka cadmeed ee Geeska Afrika waana qaran hadda u dabaal degaya sanad guuradii 30aad ee madaxbannaanidiisa iyo dimuqraadiyadda iyadoo oo aan inta badan beesha caalamka ogeyn oo aanay aqoonsanin Soomaaliland waxa ay ku guuleysatay haddana waxyaabo badan oo aan wadamo kale ku guuleysan. Guulahaasna waxa ay qabsatay iyadoo oo kaalmo kooban oo yar ka helaysa deeq-bixiyaasha iyo ururada wada shaqaynta ay leeyihiin. Waxa aanu qabanay dhowr doorasho ayuu yidhi madaxweynuhu oo dimuqraadi ah oo qof iyo cod ah. Waxa aanu ka sifaynay dhulkayaga argagixisada budhcadbadeedda iyo faragelinta dalalka shisheeye. Arrimahan oo ah kuwa wadamada kale ee nala jaarka ah ee gobolka ku guuldareysteen hirgelin kari waayeen waxa aanu salka u dhignay dhaqaale sugan kaas oo keli ah ku horumari kara marka warshadaha iyaga iyo kaabayaasha dhaqaale la ballaariyo. 30kii sano ee lasoo dhaafay dadweynuhu waxa uu markhaati ka ahaa isbedelka dadka qaar hore ay u sii saadaaliyeen ama odoroseen sanadkii 1990 wadamo badan oo ku yaal Afrika waxa ay la daalaadhaceen khilaafyo gudahooda iska horimaadyo qabiileed diimeed mareegaha argagixisada caalamiga iyo kororka talamarorsiga ku salaysan macaangudnimada iyo kala talisnimada. Caqabadahan waxa ay hor istaageen wadamo yaryar iyo kuwa waaweyn si isku mid ah kadib markii Soomaaliland xornimada ka qaadatay gumeystii Ingiriiska sanadkii 1960 dimuqraadiyaddii Soomaaliland gudmudug ku dhacday midowgii qaybta kale ee Soomaaliya ku soo afjaray guuldarro waxa dadkeegu dib u hanteen guneysutaaggooda qaran 30 sano ka hor maanta. Intaas kadib waxa aanu dhisnay dawlad bulsho u wada taagan ka dhawaynta isku dayo wadamada kale ku fashilmeen. Waxa aanu ka dhawaynaynaa hanka dimuqraadiyadeed waxa ay maamuus ah in aan ahay madaxweynihii shanaad ee si dimuqraadi ah loogu soo doorto Soomaaliland. Waxaa ka mid ah guusha Soomaaliland gaadhay is-aaminaad ka dhex jirta muwaadiniinta iyadoo oo marka ay gaadho in madaxweyne la xalimaado aan si nabad ah aniga laftaydu uga tegi doono kuna wareejin doono xilka. Soomaaliland waxaa si gaar ah u caawin kartaa wadamada daneeya dimuqraadiyadda sida Mareykanka si loo tibaaxo loona xaliyo dhibaatooyinka gobolka Geeska Afrika ka taagan ee caqabada ku noqon kara danahooda istiraatiijiyadeed. Khilaafyada siyaasadeed iska horimaadka isireed iyo dhaqdhaqaaqyada ciidameed ee ka jira wadamada naga xiga koonfurta iyo galbeedka ayaa khalkhal geliyay xuduudaha wiiqay deganaanshaha gobolka Geeska Afrika oo galaaftay nolosha dadweyne aan waxba galabsan. Dhinacayaga waqooyina isu socodka xorta ah ee maraakiibta militariga iyo kuwa xamuulka ee ka imanaya kanaalka Suez iyo badda Cas ay ku maraan kuna dhaafaan gacanka cadmeed waxaa carqaladaynaya xasaradaha ka taagan gacanka cadmeed gaar ahaan dalka Yemen iyo kor u kaca joogitaanka Shiinaha militarigiisu ku sugan yahay wadankan nala jaarka ah. Dhammaan dhibaatooyinkaasi taagan waxa ay saameynayaan danaha iyo qiyamka Mareykanka sida ay qireen labada ergey ee madaxweyne Biden u soo magacaabay gobolka. Hase ahaatee si dhibaatooyinkan xididada loogu siibo Mareykanku uma baahna ergey ee waxa uu u baahan yahay saaxiibo uu isku halayn karo. Haddaba maxaa ay Soomaaliland u noqonaysaa saaxiibkaas la isku halayn karo? Ugu horreyn qiyamkayga dimuqraadiyadeed waa ku xoogan oo aad u xoog badan. 31 waxa aanu qabanay doorashada golayaasha deegaanka iyo golaha baarlamaanka taas oo hawl badan u baahan hase ahaatee lagu jaangooyay diiwaangelin la sameeyay laguna waday habkii soo jireenka ah ee qof iyo codka ahaa ee looga bartay Soomaaliland. Doorashadaas oo kor meerayaasha caalamiga iyo kuwa gudahuba ku tilmaameen doorasho xor ah oo xalaal ah. Waxa aanu hore ugu soconaynaa la shaqaynta Mareykanka iyadoo oo dimuqraadiyaddu tahay habka ugu wanaagsan ee isbedel dhab ah ku keeni karta nolosha muwaadiniinta noqon kartana hiigsi ay bidhaansadaan cid kasta oo xuquuqdooda asaasiga ah dadaal ugu jirta inay hesho. Marka laga yimaado caqabadaha ku gadaaman danaha
naga dhexeeya annagii Maraykan. Somaliland waxa ay sii wadaysaa inay xaqiijiso nabadgelyada muwaadiniinteeda iyo ammaanka xeebteeda dhererkeedu 850 kilomitir dhan yahay. Ciidamadeeda badda Ingiriiska iyo saaxiibadeeda kale Yurub tababareen ayaa soo dhaweynaya fursadda in ay daafuraan waxyaabaha cusub ee iska kaashanaya Maraykanka, taas oo caawinaysa in laga adkaado kooxaha xagjirka lasoo afjaro dhibaatada ka taagan Yemen, lana yareeyo iska horimaadyada Israa'iil ee Itoobiya iyo in la ilaaliyo marinada badeed ee muhiimka ah, kuwaas oo bulshada Maraykanka ee wax dhoofisa iyo ciidamada badda ee Maraykankaba ay ku tiirsan yihiin. Ugu dambeyn, waxa aynu ognahay in fursadda dhaqaale ay u tahay gundhig muhiim ah deganaanshaha waqtiga fog. Taasina waa sababta aan u maalgashanayno annaga iyo shirkadda DP World oo iskaashanna casriyeynta iyo ballaadhinta dekadda Berbera iyo waddooyinka isku xidha ee noo sii mara noogana sii gudba dalalka jaarka la ah dhinaca dhulka, iyada oo dekadda ay ka soo degaan xaddi shixnad kaargo lagu qiyaasa 20 milyan 20 foot equivalent units sanadkii. Maalgelintan waxa ay u furi doontaa dhammaan Geeska Afrika iyo meelaha ka baxsanba fursado hor leh oo koror dhaqaale horseeda. Saaxiibada Maraykanka iyo maalgashiyada waxa ay naga caawin doonaan in ay muujiyaan sida kororka dhaqaale ee suuqa wada uga wanaagsan yahay deymaha lacageed ee ay ogtahay in la iska celiyo oo ah hab wadamada badan ay doorteen. Dadaal badan ayaa la rabaa si aanu u gaarno yoolasheeda. Hase ahaatee, tallaabooyinka dhabta ah ee lagu hirgelin kara waa wada hadallo, talo iyo tusaaleyn ku salaysan oo dhex mara Somaliland iyo Maraykanka. Ma dafirayno awooddeeda aanu kaga qayb qaadanayno deganaanshaha gobolka, annaga oo lagu marmarsiinayo in aanay Soomaaliya awoodin sidaas. Jiritaan la'aanta xiriir toos ah oo joogta oo lala sameeyo Somaliland ayaa waxaa ka dhashay cawaaqib aad u daran sanadadii la soo dhaafay oo ay ku jireen dagaalkii lagula jiray ayaxii ku habsaday dhulka iyo safmarkii koronaha ee hadda taagan. Dhibaatooyinkan oo kale waxaa lagaga hortegi karaa ama meesha lagaga saari karaa iyada oo la sameeyo xiriir toos ah oo joogto ah. Maraykanku waxa uu joogteeyey wadahadallo toos ah iyo xidhiidho adag oo uu la yeeshay Taiwan, saaxiib kale oo dimuqraadi ah kuna yaalla goob istiraatiiji ah. Baahida loo qabo in guusha laga gaari karo iskaashigaas dimuqraadiyadeed waa mid aan su'aal ka taagnayn maanta. Marka laga yimaado duruufaha Maraykan ee siyaasaddiisa arrimo dibadeed, fursad Taiwan la mid ah ayaa Maraykanka ay Somaliland ka sugaysaa, iyada oo dadkeedu dhabeeyeen 30 sano oo madax bannaani dimuqraadi ah, iyadoo ay ku dhex jirto wadamo aan deganayn dimuqraadiyadna aanay ka jirin. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi maqaalkiisa uu Newsweek ku qoray intaas ayuu ku ekaan.